wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane xirsi xaaji cali xasan isla markaasina ay ka mid ahaayeen wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Sacad Ali Shire iyo wasiirka dibadejinta Somaliland ayaa maanta soo gaadhay magaalada Saylac. wafdigan oo ka soo kicitimay dalka Djibouti ayaa markii uu soo gaadhay magaalada Lowyacado ee ku taala xuduudka Somaliland ay la wadaagto dalka Djibouti. waxa uu wasiirka madaxtooyadu kulan la qaatay madaxda ammaanka ee laamaha kala duwan ee magaalada ka hawlgala sida oo kalena waxa uu wasiirku indhayn ku sameeyay xarunta ciidanka booliska rugta Lowyacado oo dayactir la'aan qarka u saaran in ay dunto. intaasi kadibna waxa ay u soo dhaqaaqeen dhinaca iyo magaalada Saylac. ka hor intaan wafdigu soo gaadhin magaalada Saylac ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka ee ku sugan deegaanka Bariisle. sida oo kalena waxa uu wasiirku ku leexday dhinaca ceelasha milixda ee magaalada Tuqoshi isagoo oo wasiirku indhayn ku sameeyay halkaasi. markii uu soo gaadhay magaalada Saylac waxa uu kulan saxaafadu dibadda ka joogtay la qaatay dhammaanba madaxda degmada Saylac iyo kuwa gobolka, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac iyo dhammaanba madaxda laamaha kala duwan ee ka hawlgala degmada iyo gobolkaba. intaasi kadibna waxa uu wasiirka iyo maayarka degmada Saylac oo ay weheliyaan wafdigii kale u dhaqaaqeen dhinaca iyo wadada isku xidha magaalada Saylac iyo magaalada Boorama. wasiirka madaxtooyada mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan iyo maayarka degmada Saylac mudane Xuseen Iidla Barkhadle oo halkaasi kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in maalin dhow wadadan dhismaheeda la bilaabi doono. soo dhawaada Saylac inta ku dhaafno maanta deenu hore waan isku waraysanay waxaan imikana taaganahay waa wadadii isku xidhaysay Saylac Xariira, Saylac Boorama, Saylac Hargeysa. waxaan naga diyaara cabashada horta degmadeenu ay qabtay waxa weeyaan oo had iyo jeer soo celcelinaa caasimadii Saylac oo ka godoonsan tuulooyinka hoos yimaanay dhammaan oo inaan baabuur soo galin iyo biyo la'aan iyo caafimaadka oo liita inta waan ka hadalnaa. maanta waxaan ka ballan qaadaynaa wadadii baan u dhaqaaqaynaa annagu haddaan degmada golihii deegaanka nahay. wadadaasi waxaa naga diyaara ku talagalkeeda marka loo helo guddi farsamo iyadoo la soo diyaarin doono dhaqaalihii horumarkay degmadu ku lahayd 35% haddaan Saylacna waan la tiri joognaa maanta diyaar baan inta kale inoo hadhana waxaan ka sugaynaa walaalaha kale ee maxay ahayd horumarka jecel Somaliland ka diaspora kuwa dalka jooga dadka deegaanka iyo dawladda dhexe. inteena soo iskaashatay waan inta kale ku hadlaynayna waxaan leenahay soo dhawaada waa naga ballantaa balbarkay ka baxdeen waa bakayla qaleen cidii ka soo bixinayda waa arrinta u taala wadadii ka imaneysay Saylac Lowyacado ilaa Saylac oo Turkigan ku balansanayn bilowgeedii inaan soo kormeero oo soo aragno halka maraya sida aan ku kala warqaadanay 8 bisha insha Allah taala ay imanayaan oo hawshaas insha Allah taala 8 bisha wixii ka dambeeyaba waxaan rajaynaynaa insha Allah inay bilaabato. shayga labaad wuxuu ahaa wadadan ma aha dhagax laakiin abaabulkii iyo qorshihii wadadatan waxa weeye u baxdaa ilaa iyo waxa weeye Xariira ilaa Boorama ilaa Hargeysa. wadadatan sidii looga dhigi lahaa laami ha dambeeyay horta wado gawaadhidan ku cadilan ee galaysa ee diiriga ee ciida ee ku dhiban in wadada horta waxa weeye la salaxo oo waxa weeye la simo oo loo sameeyo marka dambana jidcada laga marka hore shaygi iyo jidcadii marka hore la abaabulo markay dhamaato wadada salfisteedu kadibna marka dambana laami sidii looga dhigi lahaa insha Allah taala qorsheeda la galo laakiin way kala horeysaa. hadda waxaan doonaynaa wado yani la mari karo oo masbuux ama saalix u ah in la isticmaalo oo gaadiidku ay isticmaalaan inaan marka hore ka dhigno meel ay ka cadilantay ka hagaajino waxaan ka qaban karayna ka qabanno biidilaahi taala. insha Allah taala dadkana waxaan leenahay haday yihiin deegaanka haday yihiin waxa weeye bulshada tahay halka degan haday yihiin bulshada Somaliland haday yihiin qurba jooga xalada ka qayb qaata sida uu sheegay meerkuna shaqo horumarinta marka hore loogu talagalay dawladda hoose iyo taan waxa weeye u diyaarinaba waa isku daraynaa akoon wadada leedahay baana loo sameyn doonaa insha Allah taala. waxaana la sameyn doonaa wadada qorshaheeda inuu gali doonaa biidilaahi taala. haloo diyaar garoobo wadada maanta. وعلى حجر شبكة ورركة اللي هي .com مقالة Saylac.